ما يهبريون سوى كيميد أنيقا إيجا ندري يا باغا وحاول إنك دلان كاغا درباحة ديريد أو دي بان ليه هبريون إنك دلان كاغا درباحة ديريد أو دي وادلين قوضاسي كسرارين شريد دل بيو جيستي باسكولا دي كو قبتي إلهي النبي وحان النمي عين منكاس مارقا حيسا هنا كيو ودنكو شرعي بوليه دولad bay sheeganaysa in kastana dawladda bay jirin oo dad baabiisay hooyada dhashay Samafale Cabdimaalik Sheekh Muuse Caldoon Faadumo Roble oo warbaahinta kula hadashay magaalada Burco waxay ka hadashay xadhigii loo geystay inakeeda Samafale Cabdimaalik Sheekh Muuse Caldoon waxa ay sheegtay in loo qabtay si sharciga ka baxsan xilli uu ku sugan dhakhtarka Maandhaye oo uu soo booqanayay dad xanuunsanaya hooyada ayaa sheegtay in loo geystay jirdil isla markaana la geeyay magaalada Hargeysa waxa ugu baaqday xukuumadda Somaliland in sida ugu dhaqsaha badan leh uu xoriyada u helo Samafale Cabdimaalik Sheekh Muuse Caldoon waatan hooyada oo ka hadlaysa arrimahaasi iyo arrimo kale isagoo ka yimid dhakhtarka dhibirka oo waa Samafale dadka masaakiinta islaamka ah ee iyagu wuxuu cunaan aan eegayn ayuu Samafalaa dhakhtarka dhibirku ka yimid uu soo eegay halkaas uu ka soo baxay de rag daba joogay oo tuugo wixii de la siin jiray waxa yare baqtiga ah ayaa haradaas baaskoolada kaga qabtay waa dileen gowdaasi ka saareen shirdil bay u geystay baaskoolada ku qabtay ilaahi iyo nabiga waxaan ahayn may caayeen markaas ilaahi iyo nabiga waxaan ahayn may caayeen dadkaas dad islaam ah waxa weeyaan ninka muwaadinka ah hadii wax loo sheeganayo de waa loo yeeraa si wacan baa loo galay warqad baa loo socon maargagixisa inaan kayo wadanku sharci buu leeyahay dawlad bay sheeganaysa in kastana dawladda bay jirin oo dad baabiisay adigu de inaan loo yeero ay waxa weey muwaadinka in loo yeero xaq buu leeyahay waxa weeyaan inankii afduuba argagixiso sida argagixisada hareeraha ka geliya baaskoolado dabadeedna gowda ka saara dabadeedna meel gooniya geeya imkana guri gooniya ilaa iyo caawa u saddexda habeen meel allaaliyo meel uu joogo lama hayo wax sheegay lama hayo meel uu joogo lama hayo meel gooniyo ku aftuumay iyagaanu meesha ugu aftuumay de rag ama saasay wada aftuubi habar yooni soo dhan de ama rag bay noqon waxa loo xilay ra'yigiisa fikirkiisa bada uu iibiyay baa lagu xiray bada uu iibiyay buu ka hadlay hal mar uu maaqul maaha hal laga joojiyo wadankeena Oromada iyo Xabashida dadkuna wuu lahaa ummaduna way lahayd gaalo iyo islaam wixii danaynaya Somaliland ama si Soomaaliya wala lahaa tiisa maxaa ku dhagan shaabadan ku dhagan Cabdimaalik hadalkiisa waa maxay ninku miyuu faashada ninka miyuu ku faashada maxaa loo xiray waa la qaaday indhaha laga dubay markii la qabtay ee la qabanayay rag dad baa arkayay labada indhood inta laga xiro feeriya la dhacay ayaa madaxa shaarka loo galiyay oo saa indhaha looga jiqsiyay ilaa ay meeshii la geeyayna saas u indha xidhnaa oo u jeebaysnaa waxa weeyaan Muuse horta Somaliland baan lagu wada xisaabtamin dawladii caynka ahayd ku dhiibay Silaanyo Maxamed Axmed Silaanyo sidaas horta uga soo faraxalatay waad soo qalibtay lagu lama xisaabtamin ciidan lama hayo rag lama hayo dalkii baa taagnaa laakiin dawladda saas u afkambiday markaad soo afkambiday aan lagu la xisaabtamin oo lagu oran maxay tahay dadkan raggan waxa afkambiyay qarankan ka waran oo lagu aamusay oo anigu moojida rag wax ku siihe oo aad soo ka soo faraxalatay bari oo dhan ayaad intaad bigtiri qabatay Itoobiya oo badii soo iibis inankaygu ummaddu ka hadlayso ayuunbu ka hadlayay caalamka meelaan laga hadlin oo la diidanay oo laga hadlin qof la ra'yigiisa ku hadlin ma jirto waa muwaadin ra'yi leh waa muwaadin waxna diidi kara inankaygu waxna qaadan kara ra'yigiisu hadlay waxa weeyaan qof walba ka dhiban raggiisa wadankiisa qof wadankiisa la dhiibayo nin aamusnaninba maaha way sababtay dadka loo dhiibayaan xabashida waa teen hala kuleeyeen inaga eryanayna inay haysatay ee gibirka inaga gureysay ilaa halkee adoogay la eryanayo Muuse oo adxayga taagnay dawladii hore ma ogoleen Ingiriiska baa diiday xabashiga inuu wadanka imaado Ingiriiska ayaa diido yiri maxay hayteen dalka rag baa leh Soomaaliya la yiraahdo cidina maxay hayteen lagu siin maayo ilaa inta badbu doonay maanta adigoon cid kala tashan oo cid hay abuurtay arkan ayaa inta diyaarad ay hawtiri aatiri waa faasaxay wadankii marka qofka damiirka la aqliga leh wax isku falayda waa ka hadlay wadankiisa caalamkana waa laga wada hadlay qof kastaana wuu ka hadlay isaga waxaan ku dhagana kaaga hilaacay ko bari mayno soo daana ku oran mayno sababtoo ay tahay waabad xanuunsanaysaa Cabdimaalik dhulka marmaro waabad xanuunsanaysaa horta dadii maqalaya islaamka ilaahay ii bariya in ninka inankayga ilaahay inuu uga soo furfuro intaanu iga cun horta ilaahay ii bariyo faatixada ii mara
dadka islaamka ay dhageysanayo inankayga intaanu iga cunin ninkan wax kale kuma daba socdee horta ilaahay inuu iga soo faatixada ii mara oo ilaahay iga badbaadiyo ilaahay iga nabadgeliyo ta kale waxaan kuu sheegayaa adduunyada marka imanka wax yar baa ku haray habeenaa ku haray mala dunida waxa sad waa taagnaanaysa wad baad leedahay 80 jir baatay cimrigaas aad taagantay aabihii baad leegtay waa ilmayaashaada la leeg ku bari maayo madaxweyne sharaf leh oo aan naga naxay hadaad tahay waan ku bari lahayn waan ku iman lahayn albaabkaaga soo garaaci lahayn way naxariis baanan kugu ogeey oo ilmahan aad laalaadsanayso aad sii day lahayd annaga marka hadaad gobol baanu joognaa waa gobol Soomaaliland hadaad ku xidho gobolkiisa waxa noqon lahayd waji waa loogu tagi lahaa anaga ugu tagina carruurta ugu tagi lahayd tolkiiba ugu tagi lahaa wad laalaadinaysa waxaanaad ku laalaadinaysa u geeyso xana awr adaa ka sheekaynaya waana wiisanaad u dhiganayso inamadaada sidaana u joogi maayaan bari ka maalin markaa tagto kuwaagun baa saa loo laalaadinaya saacagta loola dhacaya taana niyada geli wallaahi oo billaahi oo tallahi haddii xariiqi gaadho imika halkaas oo kala haaday mar walba ilaa ay maalintu inankaas soo daayay saasuu sirdoon u daba dhiga malaaji baad mudirankayga ilaahay baa hiba siiyay hiba ilaahay siiyo awood baa ilaahay siiyo aqli baa ilaahay siiyo fikir baa ilaahay siiyo waa nin wax kala garanayo ilaahay aqli iyo hiba siiyay taasad u quuri laadahay kuwaagi la midka hara waa kuwa dadka guriga ku xireysanaya waa kuwa la cararaya waa kuwa maxay haytay lala yahay iyagi awlaad nin walo Soomaaliland saa ula cararaya ee saa ula boodboodaya marka waxaan ku sheegayaa horta ku bari maayo sababtaan ku bariyana waxay tahay nin xariis baan kugu ogey باق وحنو دريا نمانك وحنو دريا باق اللباد نمانك هبريونيس